Assalaamu calaykum. Fariintan waa fariin ku socota dhammaan xildhibaanada maamulka SSC Waqooyi Bari, xildhibaanada hadda la dhaariyey ee loo dhaariyey maamulkan curdanka ah. Fariinta aan u dirayno haddaan shacabka nahay waxa weeye maamulkani ma aha maamul tijaabo iyo qiyaas geli kara. Maamulkani waa maamul curdana oo 2 sano jiray. Wuxuu u baahan yahay in laga fiirsado qofka la dooranayana lagu doorto mabda' baad dooranaysaa, qof ma dooranaysid, qabiil ma dooranaysid, lacag wax kuma dooranaysid. Waxaad ku dooranaysaa wixii kitaabka Ilaahay aad ku dhaaratay ahaa, waxa dadkan iyo deegaankan lagu dhaariyey dantiisu ku jirto. Adaan dhinaca midig iyo bidix midna eegaynin, hore iyo gadaal eegaynin. Waxaad focus ka saaraysaa dadkan dantiisu waxay ku jirto. Dantiisu waxay ku jirtaa in aan tijaabo la gelin, in aan nin kursi doona la ixtiraamin, in aan nin hanjabaya la eegin, in aan nin laaluush bixinaya la raacin, in la doorto nin shiraban oo dadkan iyo deegaanka la mabda'a. Madaxweynaha hadda gacanta ku haya runtii wuu shiraban yahay. Xagga mabda'a shacabku la mabda'aya. Xagga dadaalkana khaladaad uu ka dhici karaa, niman siyaasiyiin way isku dhici karaan, laakiin runtii wuxuu ina soo gaarsiiyay meesha aynu hadda marayno oo ah heer aynu doorasho gaadhno, dowlad dhis gaadhno. Aad ogtihiin meesha aynu hadda marayno. Waxaan loo tartamayay ee nin waliba leeyahay anaa madax ka noqonaya, qaar baarlamaankiisan gelayaa leeyihiin, qaar xilal ka rajaynayaan ee aad aragtaan ee saa loogu tartamaya. Wuxuu ka soo bilaabay meel xabadi ka dhacayso. Waa dhici kartaa in khaladaad u dhacay. Waa laga yaabaa qofku waxyaabo inuu leeyahay. Waa laga yaabaa niman siyaasiyiin oo dhaliilsan inay jiraan. Laakiin anagu detailska iyo ashkhaas isfahmi weydi iyo hebel jecel ama neceb ma eegayno. Waxaanu eegaynaa big picture ama story below. Yacni big sawirka weyn ayaanu eegaynaa. Sawirka weyn oo ah inaynu maanta marayno heerka qof waliba makhraatiga ka yahay ee bilicda iyo quruxda iyo dowlad dhiska iyo doorashada iyo nabadgelyada iyo meesha aynu marayno Soomaali oo dhan ay maaragtay indhaha ku hayso ee dhammaanteen aynu maaragtay ku wada faraxsannahay. Hoggaanka dabcan shacabka oo dhan baa yani hawshan qabtay, laakiin hoggaanku wuxuu ahaa firdhiye ayuu hoggaanku ahaa. Qofkuna marka uu dadaalo sida caadiga ah waa la siiyaa fursad labaad. Madaxweynaha Mareykanka meel walba adduunka waad ogtihiin qof 2 sano heerka dadka soo gaarsiiyey haddii 4 sano ama 5 sano la siiyo wuxuu ina gaarsiinayaa 4 jibaar iyo 5 jibaar saynu hadda nahay ka wanaagsan. Haddii uu xusho yani xubno wasiirada iyo maamulkiisa oo wanaagsan, runtii waxaanu shacab ahaan codsanaynaa in firdhiye la doorto doorashada soo socota oo baarlamaanku ay u codeeyaan oo 4 sano ama 5 sano ee soo socota uu maamulkan Waqooyi Bari hogaamiyo si meesha hadda aynu marayno meel ka wanaagsan aynu u gaadhno. Waa codsi shacabka majority ha eegin siyaasiyiin kursiga u tartamaya oo maaragtay dhaliilaya, ha eegin maamulada hareeraha naga xiga oo dhaliilaya, ha eegin qof kursi doon oo dhaliilaya, ha eegin qof maaragtay waxyaabahaas ku mashquulsan. Waxaad eegtaa shacabku guud ahaan waxa ay doonayaan firdhiye. Marka shacabka ayaad idinku matashaan u codeeya firdhiye inuu inoo soo laabto insha